gobolka Mudug ayaa dhawaan waxa socdaal ku yimid wafdi ka socda dawladda China iyo waliba dawladda Saudi Arabia. wafdigaasi waxa ay kormeer ku sameeyeen wadada u dhaxaysa deegaanka Garacad iyo waliba degmada Goldogob oo isku xireysa deegaanadaasi kala duwan. wafdigana oo isugu jiray xubno ka socda shirkadda laga leeyahay dalkaasi Saudi Arabia, injineero u dhashay dalkaasi China iyo waliba xubno ka socda xukuumadda Puntland ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanada Goldogob, Gaalkacyo ilaa iyo Garacad. waxaana ay baaritaano ku sameeyeen qaabka uu noqon karo dariiqa isku xiraya deegaanadaasi kala duwan. waxay kormeer ku sameeyeen deegaanada u dhaxeeya labadaasi deegaan ee isku xira gobolka Mudug. sidoo kalena waxay kulamo la qaateen qaar ka mid ah waxgaradkii iyo waliba qaybihii kala duwan ee gobolka. wafdigaasi ayaa sidoo kale waxa uu booqasho ku tagay xeebta deegaanka Garacad oo ay ka muuqato in ay ka taagan tahay shaqo la'aan baahsan maadaama xilliga kan lagu jiro xilli balxirana. waxaad arkaysaa iyadoo deegaanka Garacad ay waliba deegaanada ku heran ay hadda yihiin deegaano aan si aad ah oo isugu socon shaqooyinka kala duwan. dariiqan isku xiraya xeebta deegaanka Garacad ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha saameynta ugu badan oo ku yeeshay badgariirkii tsunami-ga iyadoo ay ka muuqato shaqo la'aan baahsan. Mahad Jaamac Koronto, ETN TV.